Email basics أساسياتك إيميلك. إيميل إشارة فوحة لغسو قابي electronic mail وmail electronic محل لغو قيحة برنامج وبرنامج that lets you كاسوكو أغلانيا send إنا ديرتو and receive يو إنا تشو إيميل دا over the internet أيضا الله سومرسينا إنترنت كا and other electronic networks يسيدو كاله electronic كاله network. benefits of email مركوام حي فائدين كولي هي إيميل كا. Email is a free service. Email ku waa adeeg free one is an internet connection haddii xiriirka internetku secure u yahay. Consequently, sidaa awgeed not only one may send message kaliya laguma diro fariimaha as one would like sida qofku jeclaan lahaa, but laakiin also sidoo kale can send videos waxaa lagu diri karaa muuqaalada, files and various types of documents noocyada kala duwan ee dokumentiyada via email ayadoo la dhexmarsiinay emailka. The following soo socda are some of the other benefits waa qaar ka mid ah faa'iidooyinka of available email services kuwaasoo laga heli karo adeegyada emailada. kow faa'iidada koowaad waa maxay? Accessible anywhere. Horta meel waliba ay ku shaqeeyaan at any time, sidoo kale waqti waliba ay shaqeeyaan. It means waxay la micno tahay that you can access inaad ka shaqeyn karto from your own device qalabka markaad aad haysato that has an internet connection kaasoo haysta internet. One can send one email, hal email ayaad waxaad u diri kartaa to many different people dadyo kala duwan at the same time waqti isku mid ah. qodobka saddexaad, it is relatively cheaper waa qiyaas ahaan waa mid raqiis ah compared to markii loo barbar dhigo posting letters warqadaha postiyada. qodobka afraad ugu dambeeya, it is easy waa way fududahay to manage in la maamulo. Email service providers bixiyaasha adeega emailka have tools waxay leeyihiin toolal that allow you kuwaasoo ku ogolaanaya to fileasha, label, prioritize, find groups and filter your email for an easy way management. You can even easily sidoo kale si fudud ayaad control ku xakameyn kartaa spam or junk emails. Emailada loo yaqaano spam ama junk ama emailada wata virusyada. Okay, drawbacks of emails. dhibaatooyinka emailada uu leeyahay ama faa'iido darrada uu emailka leeyahay waa maxay? The following kuwani soo socda are some of the drawbacks waa qaar ka mid ah dhibaatooyinka ama faa'iido darrada of email services uu leeyahay adeegyada emailka. Okay, qodobka koowaad waa maxay? Only computer literate people. kaliya dadka aqoonta u leh computerka are comfortable with ayaa ku raaxaysta use email isticmaalka emailka. Taleefanadii waxyaabaha kale oo computer ka soo haray way ku dhib badan yihiin. Hackers and crackers qolooyinka loo yaqaan hackerada ama wax jabsada easily interfere si fudud ay kusoo dhexgeli karaan ama kula soo falgeli karaan with people's privacy waxyaabaha dadka gaarku ama qaaska u ah. qodobka kale saddexaad, through emails ayadoo loo marayo emailada viruses and worms are transmitted waxaa lasoo gudbiyaa virusyo iyo waamyo ayaa lasoo gudbiyaa which can cause kuwaasoo sababi kara distraction burburka of the computer systemka computerka.